dalxiis iyo damaashaad beer ku taalla webiga jiinkiisa ee degmada Balcad dhalinyaro ka timid Muqdisho waxaa kaban ugu tumaya kooxda Balcad Baan waa arrin bilihii ugu dambeysay soo kordhaysay oo soo jiidatay indhaha dalxiisayaasha gudaha shaqo abuur ee noo noqotay waana wallahi inta ugu badan waa wax hadda aan isdhihi karno maalmaha ee dalxiisyada ay yimaadaan waa maasha Allah wallahi dadku waxa ugu baaqi lahaa maadaama ay arkayaan bilacdi halkan runtii waxa ugu baaqi lahaa inay soo booqdaan halkan soo booqdaan anagana waxa diyaar u nahay inaan soo dhaweeyno qof walba oo markaas halkan soo booqda inaan ku madadaalino qaaciga diyaar ayaan u nahay waxaan ka soo dalxiistay magaalada Xamar waxaan u soo dalxiistay Balcad dhulkan iyo Xamar waxay kala duwan yihiin Balcad waa dhul wabigii iyo beerihii iyo farq weyn baa u dhaxeeya runtii jawi bedel aad iyo aad weyn hawo gadis hawo haday noqoto beerihii cimiladii waxyaalahaas aad iyo aad uga wanaagsan tahay badanaa dadku markii hore jasiiro iyo liido iyo meelahaas loo dalxiistay jiray laakiin hadda badanaa laamigaan maadaama la isku furo wadadii iyo wixii la sameeyay dadkii hadda halkan u soo dalxiistayaan dhulkan beerahan waxyaalahaas wabigaas iyo biyaas iyo saasa marka halkan loo soo aadaya abni ahaana meel aad iyo aad u wanaagsan degmada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe waxay caan ku tahay beero ku teedsan jiinka webiga Shabeelle oo magaalada Dacal Mara waxa ay leedahay goobo taariikhi ah sida warshadii dharka ee Balcad iyo biyo xireenka halkan waa biyo xireenka degmada Balcad oo la dhisay sanadkii 1980 dhalinyarada halkan ku sugan intooda badan waxay ka soo dalxiistageen magaalada Muqdisho sanado yar ka hor arrintaasi suuragal ma ahayn balse dib u dhiska wadada isku xirta Balcad iyo Xamar ayaa waxay keentay in dhalinyaradan ay helaan goob cusub oo dalxiis Balcad waxay u jirtaa Muqdisho ku dhawaad 40 kiiloomitir waxayna nagu qaadatay inaan gaarno wax ka yar 30 daqiiqo magacaygu waa Caasha Cabdullaahi Maxamed waxaa ka soo tagay magaalada Muqdisho gaar ahaan xaafadda Holwadaag meesha waxa uu ma dalxiis meel qurux badan oo ma sha Allah beero iyo doogi kalilaab أول واحد مال مودل حستيجن جورجلاس كجيف جري لكن أنت مالك كس جمعة كستوك قرنها ساعة بقي لي موبايل ميدنا المجيء هو قدرة وحنشوجا دقمة بلعت سأوجده وميل قروح بدن إنه حاد الله دقمة بلعت بسود وهذا بلعت مال قفك ودمنتها دول بدن أو دمن فانتي مجيء هو سام تلصق ما أنت وحنا ميت بلعت ومالتي ورثه أو وبي أركه ilma adeerayal wabiga marka arkay baa waxa ay war roobaada roobku waacay fahamtay roob aan u wareeyo wabiga mise uu iska socdaa buunduuba leeyahay waa wabi horta qofkii aan Balcad imaan baaba taqaanaa dalxiis u dhiman yahay anagu guriga iska fadhigi jirnay laamiga intaan la dhisin markii la dhisayna dalxiiskayada waxaan ku iri jawigayada saakasaan u soo tagnay hadda u joognaa marka ma sha Allah Soomaaliya cidii ka maqan ha imaato cidii joogto anagu kala ana way joogtaa Safiya Maxamed oo 16 sano ka hor muddo kooban barakac ku ahayd Balcad waxay hadda Muqdisho uga timid daawashada doogan qurxoon waxaad taaganahay biyo xireenka oo maxanahay oo Balcad beero ma sha Allah wabi qurxoon dalkeena maxanahay waxyaabo badan oo qurxoon oo leeyahay waxaan ku baaqaa inay bulshooyinka Soomaaliyeed ee dalkooda u dalxiisaan meel walba ay joogaan waagi adiga 2007 amar imaad anoo qaxayno laakiin markaas iyo hadda isku mid ma badqabka dalxiisayaasha waa muhiimadda koowaad ee maamulka degmada si aysan u go'in shaqo abuurka iyo dhaqaalaha ka soo galaya dalxiiska haddii aan amni jirin dalxiisayaal ma imaanayaan degmadan sidaa ogtiin amnigeedu waa 100% dadka inta badan waxay tagi jireen reer Xamar khamiista iyo jimcaha liido iyo waxyaabaha kala duwan
laakiin dadka inta badan way inoo soo dameysasho tagaan way inoo soo dalxiis tagaan annagana waa ku faraxsannahay inaan xaggan ku soo dhaweyno waajibaadka naga saaran waxay tahay inaan dhallinyarada soo dhaweyno qalbiyadoona hanano si ay mar labaad iyo mar saddexaad noogu imaadaan deegaankan macnaha faa'iido badan oo ku qabaa sababtu waxay tahay qofka dalxiisaha ah wuxuu soo baxaa laga yaabaa subaxii 3 saac ilaa ay 12 saac inuu meeshan joogo waxa uu ka cunteynayo ka quraacanayo ka qadeynayo waa degmada waxa uu ku soo kordhinayo degmada waxay tahay intaasoo kun oo qof magaalada muqdisho cunto ka cun lahaayeen dii balcad ka cunaan maqaayadii dhiirigelin u tahay ganacsigu uu sii kabcaya dalagii meeshan raqiista ah ee laga gadaayo way ka gadayaan dhalinyarada waxyaabo badan ugu duwan yahay fursado ganacsi badan oo abuur dhalinyarada deegaankan dad badan oo waxaa jireen dhalinyaro ah oo baagumada oo degmada degnaay shaqo abuur badan oo u sameeyay amni darrada iyo maqnaashaha kaabayaasha dalxiis waxay sabab u noqdeen in goobo badan oo dalxiiska ku wanaagsan oo Soomaaliya ku yaala ay soo jiidan waayaan dalxiisayaasha gudaha iska badaaya kuwa ajaanibta ah. Maxamuud Abdi Casiis, BBC, degmada Balcad.